anigi iyo Raasiya aabaheeda waa kala tagnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada channelkeena xiisaha wararka. runtii barnaamijkan waa uu iga duwan yahay barnaamijyadii hore aan u qaban jiray. waxa lagu farxana runtii ma ahan anigu korontaan aan aad ugu farxi karo. hase ahaatee sabab ayaa keeni karto inaa arrin ka hadasho. muxuu ahaa arrin marka ay dhacdo talooyin iyo tusaale iyo waxyaabo badan oo loo baahan yahay in muxuu ahaa qofka walaalka aad ku biiriso. waliba arrinta kaligeeda ma ahan in macnaha arrimo kale oo la xiriira ayaa jiri karo inaan bal ka waaya aragnimadeyda muxuu ahaa inta aan soo joogay inaan taliyo tusaale bal aan ka bixiyo haddii Allah wadali u qadaro. barnaamijkan waxaan kaga hadlayaa saacado ka hor waxaa barteeda social media ku shaacisay walaasheeda qaaliga ah qaaliladan inkastoo aan wax lagu farxa aysan ahayn iyo walaalkay Raaga Cabdi in macnaha qoyskii dhisnaa uu burburay sida ay sheegtay. hase ahaatee run ahaantii ujeedkayga furiinka ma ahan iyo inaan muxuu ahaa ii sheeg reaction ka bixinayo. waayihii ugu dambeeyay waxaa jira qoysaska Soomaaliyeed in ay saameyn ba'an ay ku lahaayeen dad aan isdhihi karo waxa ay ka faa'iidi karaan ma garan karo. hase ahaatee haddii aad YouTuber tahay haddii aad qof caana tahay inta badan waxaa jiro in lagugu mashquulo oo qoyskaaga aad dhisan lahayd in arrimo kale ay mashquuliyaan. su'aalo fara badan laga weydiiyo runtii marar badan inaan ka hadalno waan rajeynayaa. su'aalaha dadka ay ku soo weydiinayaan ha ka jawaabin. waxaa jira wax la yiraahdo privacy oo adiga ku gaara qoyskaagana u gaara arrimaha gaarka ku ah. inta badan waxa aad u qurux badan inaanan la keenin baraha bulshada. haddii ay dhacdo inaa baraha bulshada keento jawaabna ka bixisa arrinkii dadkii waxa ay ku guuleysanayaan hadafkii ay lahaayeen ayaa u hirgelaya run ahaantii. inta badanna waa aragtaan in la leeyahay hebel waa kala yaaceen. horta inta badan kala yaaca wuxuu ka imaadaa waxaa jiro dad dhalinyaro iskaabula kuwa cillado ay haystaan oo daawadayaashaada ka mid ah. waxaa inta badan dhacaysa marka in marka adigu wax walba oo adiga kugu saabsan aad xabadkaagii adiga aad soo fariisataan barihii bulshada. waxaa jira qof aan waxba haysan oo iskaabula 40 sano doobnimo ku gaaray. waxaa jira qof cillado ay haystaan 100 marna waa laga hadlay. hata aatee haddana waan ku celinayaa ma qurux badna arrimaha familiga iyo qoyska in baraha bulshada aan la imaataan. waayo il bini aadan ayaa kugu dhacayso. il bini aadan marka ay qoyskaaga soo gasho haddii isha bini aadan ay ubadkaaga ku dhacdana muxuu ahaa saameynteeda leedahay. haddii labadiina farxadiina ay ku dhacday farxadaas isha bini aadan inay burburisa ayaa suurtagala. cadowguna waa faa'iidadiisa. inta badan marka farxadiina iyo danihiina gaarka iyo waxyaabihiina gaarka kaliya dhacdadan kama hadlaayo. waxaa aad u qurux badan in wax walba ay gaar ay ahaadaan. walaashay waxay sheegtay in Raage iyo ayada ay kala yaaceen. muxuu ahaa ii sheeg inkastoo aad muxuu ahaa looga qurux badnaa in ayada naftirkeeda ay shaaciso aad baa looga qurux badnaa. waayo maalmo ka hor waxay sheegtay arrinka muxuu ahaa wax ka jira malacan. laakiinse reer Faarku Dhiigle waxay Faarka ka soo qabteen gurigan aniga iyo gabadheeda wada degayno meesha ayaga duleelkii ugu horeeyay uga soo baxayba. haddii ayada iyo gabadha ay degayaan oday su-aasha meesha ka imaanaysaa. su-aalo lagu soo weydiinaa 100 qofood la weydiiyaa laakiin waxaa aad u qurux badan inaadan su-aal lagu soo weydiiyay marnaba aadan jawaab ka bixin. commentiga kale inta aanan u gudagalin waxaa aad u qurux badan horta caruur haddii ay meesha ibaato caruurtaas waxaa farxadooda iyo wanaagooda iyo caafimaadkooda iyo horumarkooda wuxuu ku jiraa wada jooga iyo isla jooga hooyada iyo aabaha. nina sheedaan dhahan wuu jiraa sheedaan shaqadiisa kama habsaamo. gabadha ama ubadka dhashay ama wiilka ama muxuu inta ay haystaan qoyskaas markaas ay haystaan haddii sheedaan intuu yimaado bataatanba ima soo galo qofkan bataatanba qoftan ima soo gasho marka aad ahdid waxaa fiirinaysaa labadiina waxa idinka dhaxeeyo. laakiin mar walba waxaad isku daydaan ubadka meesha yaala inaad fiirisaan. inkastoo mararka qaarkood aan la celin karin oo dhowr qof ay ku dhacdo wixii qoran xag alla ay ka qoran yihiin
hase ahaatee mar walba waxaa banaan oo furan dadaalka ayaa muxuu ahaa ishag nala faray haddaan aadananahay awood ma lihin laakiin dadaalka mar walba ina isku saartaan oo isku dhiirigelisaan intaan uusan ubad jirin haddii la kala tago laba walaalaha leeyahay laakiinse mar hadduu ubad jiro lama kala haraayo lamana kala go-aayo waxaa qurux badan marka mar walba in lagu dadaalo intuusan muxuu ahaa xeerihii fandhaal aysan kala dhicin weli xitaa haddii oo halkoo ay baxeen xitaa weli rajaa leedahay inta muxuu ahaa waqtiga uusan dhicinna qof walba uu ka gaarsiiyey haddii markaas shaydaan uu jiray wixii oo aanu soo laabad lahayn oo soo noqosho lahaynna haddee cid celin kartaa ma jiro qadartay la mid tahay wax walbana xaq alle ay ka qoran yihiin inkastoo aanan jeclaysan karin haddana waxaan jeclaa bal talooyinkan inaanan muxuu ahaa furiinka lagu degdegin inaanan arrimaha gaarka ah ee labada qofood gaarka waa aanan baraha bulshada lala iman haddii lala imaadana ay jirayso il bini aadan in micnaha qur-aan fara badan qoyskaas uu u baahan yahay labadiina si gaar ah weliba aniga inta badan waxaan kula dhiirigeliyaa oon kula taliyaa dhalinyarada asxaabta aan nahay waxaa jiro xitaa iska dhaaf qoyska oo burbure shaqada naftirkeeda ayaa laisku ilaystaa mararka qaarkood codkarnimada laisku ilaystaa mararka qaarkood ninkan aa ujeediin caloosha le foolxumada ka badatay ayaa suurtagala in lagu ilaysto shaqo fara badan iyo howlkarnimadiisa in lagu ilaysta suurtagala marka maxaa u baahan tahay markaas oo kale habeenkii markaad seexanayso muxuu ahaa ruqya sharciya youtube-ki ku jirtaa qur-aanka haddaa ku qortid isha jinka sixirka waxaa dhan waa iswataan hawshii qortaasi maba kala reebaba intaas uu soo daraamo adig intaba iska dhegayso 4 habeen 5 habeen haddaa dhegaysatid haddii shaqo aad caajis uu kaa hayay oo aad caajisnaa jirtay oo aad mashaqaysta noqotay 5 habeen haddaa dhegaysatid maalintii 5aad danahaaga raacanaysaa haddii aad rabtid calaamadaha lagu gartana horay barnaamijyo badan oo aan uga soo sheekeynay waa ay ku jiraan bal nala daawada kilib yar oo ku aadan walaashay qaaliladan inkastoo war lagu farxo uusan ahayn haddana bal aan yara daawano insha allah midda koowaad wax waaye aniga iyo wiilkaas Raaziya aabaheed ma kala tagteen mise waa wada joogtiin aniga iyo Raaziya aabaheeda waa kala tagnay inta jeclaa reerkayga inuu dhisnaado oo walaalahayga ahay oo naftooda kale iga soo qaadeen horta waa ku mahadsantiin intii xumaayeen oo rabeen inay jawaabtaas helaana waxaa idin leeyahay booska idii banaan waa kaasa haddii booska ay kaga cariirinayay dee waa kaasa walaalayaal taasi waxay ahayd walaashay qaali axmed oo ka hadlaysay arrin qof walba oo damiir iyo dadnimo leh uusan ku farxaynin hase ahaatee waxaan dhihi karnaa allaha ka dhiga barankii inuu ahaa waayo qoyskaas wuxuu ahaa marka loo eego baraha bulshada dadka caanka ka ah hase ahaatee arrimahooda aana la maqal qarsoodi ayay u ahaayeen difaaca waa laga soo saaray sida aan dareemayo hase ahaatee qofku mar baa laga daba keenaa haddii waqtiga calafku u qoran yahana alla subxaanahu watacaala aan ugu barino in muxuu ahaa gabadhaas yar darteeda ay isugu soo laabtaan haddii inay wax wada cunaan ay u qoran tahana xag alle ay ka qoran taha laakiin annaga ducada haddaan walaalanahay haddaan asxaab nahay inay muxuu ahaa qoyskaas sii dhisnaado inta kale ee walaalo ah qoysaskooda dhawaan oo burburana in micnaha dib qoyskaas uu u unkamo ayaan alla subxaanahu watacaala uga baryaynaa aanu dadaalno walaalayaal reer faar ku dhiigle way naga dabageenayaan su-aalo fara badan wayna weydiinayaan dulqaadkeena in alaala inta uu leegyahay qof walba dulqaadkiisa waa la qiimeynayaa waa la fiirinayaa dulqaadkaaga hadduu yaraado ay kaa daba imaato oo lagaa dabageeyo sidii ay rabeen leewaa adiga laakiin haddaad dhabar adeegto arrimaha ku gaarka aadan baraha bulshada keenin runtii si lagaaga guuleystahay aad bay u adkaanaysaa aan dadaalno qoysaska isqabo isha bini aadanka way jirtaa haddaadan ogeyn way jirtaa ku tasho inaad muxuu ahaa gurigaaga meeshaad hees ka shidi lahayd inaad qur-aanka ka shido meeshii aad hees ku seexan lahayd ama tiktok aad ku seexan lahayd inaad qur-aanka ku seexato cilaajka youtube-ku ka buuxa ayagoo muxuu ahaa isha dhowr nuuca ayagoo cabsile ayagoo jawi degane xitaa waxaa ku jiro muxuu ahaa isha ayagoo 10 saacadooda oo caruurta lagu seexiyo xitaa caruurta naftirkeeda aad bay u baahan yihiin muxuu ahaa way ku qoran tahay
quraan caruurta lagu seexiyaa jiro oo intaasoo saacadooda ay ku seexanayaan roob lagu seexanaa abo roob oo youtube lagu jiro oo dhegeysigiisa inta aad ku dhegeysan lahayd ishana ha kaa baxdee quraanka hala dhegeysto quraanka hala badsado ducada adkaarta hala badsado walaalayaal intaas ayuu kula dardaarmayaa tan iyo kulantideeni dambe inta barnaamij la bidaa dib ugu wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh